waxaa laga joogaa dhowr iyo 30 maalmood tan iyo markii dagaalku bilowday. Hadda Iiraan waxay ku hanjabtay inay xiriso marinka istiraatiijiga ah ee ugu muhiimsan ee Bab el-Mandeb. Hanjabaadan waxay ka timid kadib wararka sheegaya in Mareykanku ka fiirsanayo in ciidamo dhulka u diro si uu la wareego jasiiradda Kharaq. Waa muhiim in la fahmo in jasiiradda Kharaq ama Kharaj loo yaqaan aysan ahayn bartilmaameed militari oo caadi ah. waa wadnaha dhoofinta shidaalka Iiraan, maadaama halkaas laga maamulo ku dhawaad dhammaan saliidda cayriin ee dalkaasi u dhoofiso dunida. taasi waa sababta dhabta ah ee Mareykanku uu diiradda u saarayo, sababtoo haddii Kharaq la xakameeyo dhaqaalaha Iiraan si toos ah ayaa cadaadis loogu saari karaa. wararku hadda waxay sheegayaan in Mareykanku xitaa isu diyaarinayo howlgallo dhuleed oo suurtagal ah. ma aha duulaan buuxa, balse waa howlgallo xadidan oo lagu xaqiijinayo bartilmaameedyo muhiim ah sida jasiiradda Kharaq. dhinaca Iiraan arrintani waxay gabi ahaanba bedeshay xaaladda, sababtoo ah marka ciidamo shisheeye ay cagta soo dhigaan dhulkaaga ma aha oo keliya duqaymo cirka ah ee waxay isu bedelaysaa dagaal aad uga qoto dheer. sidaas darteed halkii ay keliya kaga jawaabi lahayd gacanka Faris, Iiraan waxay muujinaysaa wax ka weyn. kadib marinka Hormuz, Iiraan waxay ku hanjabtay inay xidhayso marinka kale ee aadka muhiimka u ah ee Bab el-Mandeb haddii Mareykanku sii kordhiyo xiisadda. inkasta oo Iiraan si toos ah aanay u joogin halkaas, haddana xulafadeeda kooxda Xuutiyiinta Yemen ayaa awood u leh inay beegsadaan maraakiibta halkaas maraya. arrinkaas haddaynu halkaa kaga nimaadno, waxaan kuu sheegayaa hal shay oo aad ku anfacaya. su'aalan ku weydiiyo, si fudud ma u xanuunsataa sababtoo ah difaaca jidhkaaga oo hooseeya? ma dareemaysaa daal joogto ah, murqo xanuun ama lafahaaga oo daciif ah? xalku waa mid fudud. kan waa fitamiin D3. faa'iidooyinka uu leeyahay waxaa ka mid ah waxa uu xoojiyaa lafaha iyo ilkaha, waxa uu kor u qaadaa difaaca jidhka, waxa uu yareeyaa murqo xanuunka iyo daalka, wuxuu kaa caawinayaa jidhkaagu inuu nuugo calcium-ka si fiican, wuxuu kuu kordhinayaa tamarta iyo firfircooni maalintii oo dhan ah. hal kiniini oo keliya maalintii, isbeddel dhab ah ayaad ka dareemi doontaa. ka dalbo linkiga aan halkan kuu soo dhigi doono ama profile-kayaga bio-ga saaran page-ka dhexdiisa. linkiga markii aad ku dhufatid waxa kusoo bixi doona page-kan, whatsapp-ka ku dhufo, kadibna halkaas ka dalbo oo qoraalku isaga ayaa si automatic ah isu qori doona. waxaad keliya oo odhan doontaa send. marka aad diritidna isla markaba waa laguu soo jawaabi doonaa, waxaadna heli doontaa fitamiin D-gaaga. hadda dalbo oo hadda hel.